soo dhawaada barnaamij cusub oo aad u xiiso badan lana magac baxay barnaamijka bayaanka danab. barnaamijkan waxaa toddobaad kasta aan ku soo qaadanaa warar, sheekooyin, waraysiyo aan la yeelano taliyaasha iyo ciidamada kumaandooska danab ee u taagan dalkeena Soomaaliya si ay uga dhigi lahaayeen mid nabdoon oo xasiloon. barnaamijkan waxaa jimco kasta 10 barqanimo aad ka daawan kartaa bogga aan ku leenahay YouTube-ka iyo Facebook-ga ee Dana Media, ama waxaad ka dhageysan kartaa idaacadaha kale ah Radio Muqdisho, Radio Kismaayo, Radio Baydhabo, Radio Galgaduud iyo Radio Beledweyne. saacadu marka ay tahay 3:00 galabnimo isla maalinimada jimcaha ah. barnaamijka maanta waxaan ku soo qaadanaynaa wararkii toddobaadka ee ciidanka kumaandooska danab oo ay ka mid yihiin ciidanka danab oo hawlgallo ku khaarijay 3 horjoogayaal oo ka tirsan al-shabaab. danab oo hawlgallo lagu xaqiijinaya ammaanka ka samaysay wadada xidhiidhsa degmooyinka Afgooye iyo Walaweyn. kumaandooska danab oo gurmad caafimaad u fidiyay dad ku dhaawacmay qarax ay al-shabaab ka geysteen magaalada Kismaayo. waxaa kaloon barnaamijka idinku haynaa guulaha iyo horumarada xagga amniga ah ee labadii sano ee la soo dhaafay ay ku guuleysteen ciidanka kumaandooska danab, iyo maxaad ka taqaanaa taariikhda dheer ay leeyihiin ciidanka kumaandooska Soomaaliyeed ee danab. barnaamijka waxaa idila socodsiinaya Noshlaawo Cabdilaahi Cabdiraxmaan. ciidanka kumaandooska danab waxay hawlgal qorshaysan ku dileen 3 ka tirsan al-shabaab kadib hawlgal ay maalinimadii Khamiista ka sameeyeen deegaanada Xaraarka, Gaabo Gabdhoole, Qudus iyo Labasuug ee gobolka Jubbada Hoose. ururka shanaad ee guutada 16aad ee ciidanka kumaandooska danab ee xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa fuliyay hawlgalkan oo yimid kadib markii ay sii korodhay cadaadiska iyo dhibaatooyinka ay shabaab ku hayaan dadka ku nool deegaanadaasi. ciidanka oo ka jawaabaya dhibaatadaasi ayaa hawlgalka qaaday, sida ay sheegeen saraakiisha danab ee ku sugan gobolka Jubbada Hoose. intii uu hawlgalku socday waxay ciidanku gurmad u fidiyeen dad shacab ah oo maleeshiyaadka argagixisada al-shabaab ay ku dhaawaceen deegaanka Qudus. dadkaas ayay maleeshiyaadku ka rabeen lacag baada, hase yeeshee intii aanay ku guuleysan hadafkooda ayay ka soo gaareen kumaandooska danab. kumaandooska danab ayaa mar kasta sameeya hawlgallo guuleysta oo ka dhana kooxda argagixisada. waxay dhammaantood hawlgalladani qayb ka yihiin dadaalkooda soo celinta amniga iyo xasiloonida Soomaaliya. ciidamada kumaandooska danab ee ku sugan gobolka Shabeellaha Hoose ayaa maalinimadii Arbacadii 2 bishan Juun waxay hawlgallo xaqiijina amni ka sameeyeen wadada xidhiidhsa degmooyinka Afgooye iyo Walaweyn ee gobolka kadib markii ciidanku ay ka war heleen in kooxda al-shabaab ay doonayso inay wadada dhigto jidgooyooyin cusub. sida ay baahisay idaacadda ku hadasha codka ciidamada ee Danab Radio, waxay danab ka hortagtay isku daygaas lagu carqaladeyn lahaa isku socodka iyo amniga jidka u dhaxeeya Afgooye iyo Walaweyn, iyadoo ay ciidanku baacsadeen maleeshiyadii waday isku daygaas. intii uu isla hawlgalkan socday waxay ciidanka danab ku qabteen degmada Walaweyn ruux lagu tuhmayo inuu ka tirsan yahay al-shabaab oo ku lug lahaa diyaarinta qarax. hawlgalka qabashada ayaa u dhacay si nabad ah, waxayna hadda ciidanku su'aalo weydiinayaan la tuhmanaha. dhammaan tallaabooyinka waxay ku soo beegmayaan iyadoo kumaandooska danab ay dardar gelinayaan dadaalkooda sugidda amniga iyo in shacabka Soomaaliyeed ay nabad buuxda helaan. saraakiisha danab waxay sheegeen inay ka go'an tahay in hadafka koobaad ee kumaandoosku uu noqdo in meel kasta oo ka mid ah dalka ay nabad noqoto. ciidanka kumaandooska xoogga dalka Soomaaliyeed ee danab ayaa gargaar caafimaad u fidiyay dad shacab ah oo ku dhaawacmay qarax bam gacmeed oo ay kooxda al-shabaab ka geysteen magaalada Kismaayo 3 bishan. ugu yaraan 6 qof oo ay ku jirto gabar 2 sano jir ah ayaa ku dhaawacmay markii bam gacmeed lagu weeraray maqaayad ay dad shacab ku sugnaayeen oo ku taala wadada Somali Star ee magaalada Kismaayo. al-shabaab ayaa la rumaysan yahay inay ka dambeeyeen weerarkan. ururka shanaad ee guutada 16aad ee kumaandooska xoogga dalka Soomaaliyeed ee danab oo gudanaya waajibaadkooda qaran kana jawaabaya dhibaatada meesha ka dhacday ayaa dhaqaatiir ka socotay ciidanka ay gargaar caafimaad u fidiyeen dadka ku dhaawacmay weerarkan. dhaqaatiirta ayaa daweeyay dadkii dhaawacmay halka dadkii qabay dhaawacyada halista ah loo qaaday cisbitaalka guud ee magaalada Kismaayo. kusimaha taliyaha guutada 16aad ee kumaandooska danab Dhamme Xasan Maxamed Cismaan Xasan Tuure ayaa sheegay in argagixisada al-shabaab ay dadka u xasuuqaan si aan kala sooc lahayn
dhamme xasan maxamed cismaan xasan tuure ayaa tilmaamay haddii aysan danab meesha tegi lahayn in dhibaatada intaasi ay ka badnaan lahayd. kooxda al-shabaab waxay inta badan ku howlan yihiin inay dhibaateeyaan shacabka Soomaaliyeed halka ciidanka danab ay u taagan yihiin nabadda iyo badbaadinta shacabka iyo sidii xasilooni buuxda ay dalka uga dhici lahayd. wararkii toddobaadka ayay kuwaasi ahaayeen. weli waxaad daawanaysaan qaybtii koowaad ee barnaamijka bayaanka danab. barnaamijka waxaan kusoo qaadanaa waxqabadka sheekooyin iyo wararka ugu xiisaha badan ciidanka kumaandooska danab. barnaamijka waxaad ka daawan kartaa barteena YouTube-ka toddobaad kasta. xusuusnow oo rukumo barta YouTube-ka si aad nagala socoto. ciidanka danab waxay dhowrkii sane u dambeeyey gaareen guulo waaweyn oo xagga amniga ah. waxay horseed u noqdeen xoreynta deegaano badan oo ka tirsan dalka iyagoo ku guulaystay qorshaha amniga iyo xasilinta. guulaha ay ciidanku gaareen waxay horseedeen inay ammaan ku mutaystaan iyo inay sii korodho kalsoonida ay ku qabaan shacabka Soomaaliyeed. haddaba daawadayaal warbixintan waxaynu ku eegaynaa guulaha dhinaca horumarada iyo amniga ee ay sameeyeen ciidanka kumaandooska Soomaaliyeed ee danab. ciidanka kumaandooska ee danab waxay guulo lama taabtaan ah ay ka gaareen howlaha amniga iyo dib u soo celinta nabadda waarta ee dalkeena Soomaaliya. labadii sano ee ugu dambeeyay waxay fuliyeen howlgallo guuleystay oo ay ku baaxsanayaan kooxaha argagixisada ah. waxay howlgalladoodu noqdeen kuwo miro dhalay oo lagu xoreeyay deegaano badan oo ka tirsan gobollada koonfureed. waxaa dib u soo noqday noloshoodii deegaanadaasi sida waxbarashada, caafimaadka iyo maamulkii dawliga ahaa. Generaal Odawaay Yuusuf Raage, taliyaha ciidanka xoogga dalka, ayaa sheegay in ciidanka danab oo guulo badan ku talaabsaday ayna sii wadayaan halganka ay ku jiraan. ciidamada halkan ku sugan iyo meelo badan oo jiidaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya uu ku sugan yahay kamiduhu waxay ku jiraan halgan ay kula dagaalamayaan nimanka cadawga ah kuna xaqiijinayaan amniga dalka. waxaan aaminsanahay xaqiiqatanka ciidanka halkan ku sugan ee argagixisada ay weerar ku soo qaadeen 3 bishan waxay xaqiiqatanka kala kulmeen wax aysan guud ahaan dalkan ama kuwa ajaanibta ha noqdaano ama nuucay doonaanba ha noqdaane ciidamada kala duwan oo ku sugan dalkan aysan kala kulmeen waxay kala kulmeen jab, waxay kala kulmeen xaqiiqatanka wixii ciidanka halkan fadhiya loo soo carbiyay kala kulmeen. danab waxay labadii sano ee la soo dhaafay kordhisay cududeeda iyo awoodda ay u leedahay inay wiiqdo cadowgeeda. waxay ciidanku heleen tababaro caalami ah iyagoo gacan ka helaya saaxiibada caalamiga ah sida Mareykanka. danab waa ciidan ku aastaysan in ay leeyihiin tayo heer sare ah oo u saamaxaysa inay si degdeg ah u howlgalaan oo ay bartilmaameedkoodu gaaraan sida uu leeyahay Cabdiraxmaan Sahal Yuusuf oo ah khabiir dhinaca amniga iyo siyaasadda gobolka Geeska Afrika. ciidamada danab waxa weeyaan ciidamada qayb ka tirsan weeye ciidamada Soomaaliya oo kumaandooska oo gaarka ah loogu talagalay in waxyaabaha meelaha gaarka ah inay ma garanaysaa ay wajahaan dalkan inay cadowga ka dhiciyaan operation gaarka inay fuliyaan. wadan kastana wuxuu leeyahay ciidamo noocaas oo kale oo kumaandoos oo gaar ah si gaar loo tababaro. ciidamadaas oo dhan waxa weeyaan waa ciidamo runtii tayo leh leeyihiin. sida uu leeyahay khabiir Cabdiraxmaan Sahal, horumarada danab waxaa ka mid ah in dhowrkii sano ee u dambeysay ay Soomaaliya u soo jiideen sumcad iyo in ay dib u soo celiyaan halgankii ciidamo ee dalka lagu yaqaanay. ciidamada danab la shaqeeyay wada saxaabada la shaqeynaya tababarka ka qaadanayaan wada howlgalahayaan waa khibrad bay ka kasbanayaan. waxay kasbanayaan way aragnimo, waxay kasbanayaan cashiro ay barteen bay fulinayaan. waxay Soomaaliya u keenayaan sumcad wanaagsan. waxay abuuraysaa rajo ah in ciidamada Soomaaliyeed oo midaysan oo bedel amisom in la yagleeli karo. 24 bilood ee u dambeysay howlgallo guuleystay oo qaarkood lagu xidido siiyay saraakiil sarsare oo ka tirsanaa al-shabaab ayay danab ka fuliyeen dhowr goobood oo ka tirsan gobollada dalka gaar ahaan Jubbooyinka iyo Shabeellooyinka, taasoo muujisay awoodda ciidanka Soomaaliyeed oo u leeyahay inuu hanto amniga dalka. waxa weeyaan hatta ma garanaysaa operation naajixa ka fuliyay Soomaaliya ka
ka fuliyay gobolada dhexe ka fuliyay koonfurta meel badan ka fuliyay Jubbaland kamid ah waxaa kamid ah gobolada Shabeellaha hoosaa kamid ah waxaa kamid ah meel badan oo gobolada dhexe kamid ah marka waa ciidamada taysan runtii oo u baahan in la sii kobciyo la sii dhiirigeliyo marka ciidamada waa qayb oo hadda islaahay waxa loogu talagalay operationnada gaarka inay fuliyaan oo ku saabsan sida meesha ay joogaan oo kale qolo shabaab oo kale inay galaan habeenkii ama maalin ay galaan qof mucayan inay soo dilaan meel inay burburiyaan intaas waaye oo ayagoo la shaqeynaya saaxiibada oo Mareykanka Shabeellaha hoose oo kale meelo fara badan ay ka fuliyaan operation si joogto ah jirtay oo ay ku laayeen saraakiil sare oo muhiim ah oo al-shabaab Jubbaland sidoo kale yani operation muhiim ah laga fuliyay oo lagu weeqay 2018 ilaa 2019 gobolada dhexe sidoo kale waxa ka jira operation gaar ah Soomaaliya aragtida shacabka Soomaaliyeed ee ka haystaan danab waa mid sareyso oo shacabku waxay ciidanku u arkaan in ay yihiin ciidan dhexdhexaad oo aan marnaba siyaasad iyo wax kale aan ku lug lahayn danab waxay u taagan yihiin oo kaliya amniga iyo xasiloonida dalka wada shaqaynta danab ay shacabka Soomaaliyeed la leedahay waa mid ku dhisan isfaham iyo gaarista Soomaaliya oo xor oo xasiloon guulaha ciidanka danab iyo guud ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxay cadeen u tahay si ay uga go'an tahay dhammaantood in la helo nabad waxaan rajaynayaa inaan u dabaaldegno guulo badan oo ay gaaraan ciidanku mustaqbalka kumaandooska Soomaaliyeed ee maanta jira waxay leeyihiin taariikh muddo 10 sano ah soo jirtay oo ku astaysan waqti ku dhow xilligii la dhisay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed maxaad ka taqaanaa kumaandooska xubintan waxaan dib ugu eegaynaa taariikhda kumaandooska Soomaaliyeed ay lahaayeen laga soo bilaabo xilligii madax banaanida ilaa 1991 haddaba daawadayaal waxaanu la kulanay laba xubnood oo hore uga tirsanaa ciidanka kumaandooska Soomaaliyeed ee danab waxaanu wax ka weydiinay taariikhda ciidanka danab iyo sida ciidanka hadda jira ay wax uga baran karaan ciidankii hore kumaandooska Soomaaliya oo la asaasay waqti ku siman xilligii la dhisay ciidanka xoogga dalka Soomaaliya waxay leeyihiin taariikh soo jireen oo ka badan nus qarni waxay weligoodba qayb ka ahaayeen ilaalinta amniga sharafta iyo xasiloonida shacabka iyo dawladda Soomaaliyeed ciidanka danab wuxuu weligii isku asteysnaa inuu u taagnaa inuu difaaco qarannimada Soomaaliya daawade maxaad ka ogtahay taariikhda soo jireenka ee ciidanka danab ay leeyihiin Colonel Cabdisalaan Axmed Gabayre iyo dhamme Faarax Nuur Cali waxay ka mid ahaayeen ciidankii kumaandooska Soomaaliya ee dhisnaa ka hor intii aanu dalku dagaalada sokeeye gelin waxay barnaamijka bayaanka danab uga warrameen aasaaskii ciidanka iyo sababihii ka dambeeyay in la dhiso aasaaska taariikhda kumaandooska saddexda hoggaan waaweyn waa la shaqayn jireen kuwa ciidanka kumaandoostu waxaana ahaa markii 63kii ayaa iyaga xoog loo soo aasaasay la isku duway markii maaragtay halkaasi dagaalkii haddana 64kii marka laga soo baxay yaa la sii tababaro aad la isugu sii duway aasaaskina wuxuu ahaa aasaaskii ciidamada meeshaan la yidhaha hadda xalane xaruntii lagu aasaasay bay ahayd oo dugsiga tababarka ugu weyn bay ahayd kumaandoostuna waxay ka mid yihiin qayb ciidamada ka mid ah waxay ahaayeen ciidamo aad iyo aad u tababaran runtii badan dawladdii dhexe ee Soomaaliya ay tababartay meelo badan ay ku soo tababartay oo dalka dibaddiisa ah ka bacdina ayagu waxay noqdeen tababarayaal ay noqdeen waxay ahaayeen ciidamo aad iyo aad loogu kalsoon yahay oo ka mid ah xoogga dalka Soomaaliya danab baa la dhihi jiray waxay ahaayeen ciidamo duurka ku jiri kara ayaga oo aan waxba cunin 2 wiig kuna noolaada masaska duurka ku jira danab waxay ku asteysnaayeen weligoodba inay ahaayeen badbaadiyaasha shacabka Soomaaliyeed waxay ahaayeen ciidan loo diro howlgallada gaarka ah oo ciidan kasta uusan qaban karin mid ka mid ah guulihii dhaxalgalka ahaa ee lagu xasuusto ciidanka danab waxaa ka mid ahaa badbaadinta diyaarad ay lahayd shirkadda diyaaradaha ee Lufthansa oo laga soo afduubay dalka Lubnaan sanadka markuu ahaa 1977 waxay danab howlgalkaas badbaadinta ugu soo jiiteen Soomaaliya magac iyo taageero caalami ah waxay ahayd badbaadiyaalka dalka Soomaaliya dibaddiisa iyo gudihiisaba
waxaa ka mid ah waxyaabaha ay badbaadiyeen diyaaraddii Lufthansa ee laga soo afduubay Falastiin soo afduubtay Beirut laga soo afduubay Yurub meel kasta laga soo markii ugu dambeysay Talyaaniga ay ku degtay Talyaanigu yiri taayirada laga banjariyo oo Yaman ku degtay oo meel walba ku degtay aakhir Soomaaliya ku soo degtay diyaaraddaas markii soo degtay iyadoo aan waxba la yeelin dadkii saaraay ayaa diyaaraddii hoos laga furay dabna loo shiday dhinaca maayamoorta oo xigta ee xeebta ayaa dab loo shiday dabkii intay fiirsanayeen hoos ayaa commandostu ka gashay iyo technicalkii aviationka ahaa xoogga dalka Soomaaliya ay ka galeen isla markiina waa la qabtay taariikhda ciidanka danab waxay tilmaamaysaa inay ahaayeen ciidamo leh tababar heer sare ah markii uu dalku burburay ciidanka danab waxay ka mid ahaayeen xoogga dalka ee uu burburku saameeyey hase yeeshee sanadihii ugu dambeeyey ayaa dib loo unkay ciidanka danab commandoskii hore ee Soomaaliyeed waxay sheegeen in ciidanka danab ee maanta jira ay leeyihiin astaamo lamid ah kuwii ciidankii hore waa kan Colonel Gabayre oo isla bardhigaya labada ciidan ciidanka horta danab oo hore iyo danabkan dambe magaca waa isaga mid ku talagalku waa isaga mid waxay leeyihiin dhaqaale gaar ay leeyihiin tixgelin gaar ay leeyihiin waxay leeyihiin himage yani dhiirigelin bay leeyihiin ciidamada kumaandoosku maahan la mid maan ciidamada kale ciidanka danab ee maanta jira waxyaabo badan ayay ka baran karaan kumaandooskii berisamaadkii si ay u sii wadaan dadaalkooda sugidda amniga iyo nabadda Soomaaliya macaanka dawladnimadu waxa ay leedahay in la baro ay u baahan yihiin lana tababaro oo wadaniyadda waxa la yiraahdo lagu tababaro ma fahamtay la baro dawladnimadu waxa ay tahay askarinimadu waxa ay tahay nolosha bini'aadanka waxay tahay sida loola noolaado dadka ma garatay qarannimo Soomaaliyeed haykalkooda lagu saleeyo daawadayaal guud ahaan intaas waxaan ku soo afmeerayaa barnaamijkii bayaanka danab ee toddobaadkan bayaanka danab waa barnaamij toddobaadla ah oo ku soo qaadano warar sheekooyin iyo macluumaad la xiriira ciidanka kumaandoska Soomaaliyeed ee danab ha mooganaan inaad daawato barnaamijka kan xiga xusuusnow inaad ku soo biirto oo aad rukumato boggeena YouTube-ka ku dhufo calaamadda gambaleelka si aad ula socoto oo aad daawato barnaamijka kan xiga xilliga uu soo galayo faahfaahin dheeraad oo ku saabsan danab kala soco oo ka mid noqo bogga Facebook-ga ee Danab Media waxaad sidoo kale jimco kasta 3:00 galabnimo aad barnaamijka ka dhageysan kartaa idaacadaha Radio Muqdisho, Radio Kismaayo, Radio Galgaduud, Radio Baydhabo iyo Radio Beledweyne daawadayaal waa inoo toddobaadka dambe iyo barnaamij kale cusub oo aad u xiiso badan intaynu mar kale kulmi doono dhammaantii isku duuban waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo